ninkan waxaa lagu magacaabaa qaaruun. qisadiisu waa mid la yaab leh oo cashir u ah bini'aadamka oo dhan, sida uu isku beddelay iyo halaaggii u dambeeyey. qaaruun waxa uu ahaa addoon cibaadada alle isku gaar yeelay, nin iska takooray bulshada oo dhan si uu u qanciyo alle subxaanahu wa tacaala. waxa uu ahaa wadaad noloshiisa ictikaaf iyo allabari ku casuumay, ilaa uu muddo bilaha ictikaaf u galay godad dhulka hoose ah si dadku aysan uga mashquulinin khayrka iyo cibaadadiisa. waxaa la sheegaa shayddaan oo kari waayey inuu cibaadada ka jeediyo ninkan ayaa markii dambe nin wadaad ah isugu soo ekaysiiyey, kadibna qaaruun ka codsaday inuu la cibaadaysto. shayddaankii waxa uu ku guulaystay inuu bannaanka u soo saaro qaaruun, isagoo ku qanciyey inay marka hore soo shaqaystaan lacag ay ku noolaadaan. waa halka uu uga bilowday isbeddelkiisii nolosha ee aakhira beelka ka yeelay. ninkii mu'minka ahaa, cibaadada badnaa ee macaankii adduun uga jeestay baryada alle, waxa uu isku beddelay nin hunguridoon ah oo adduunyadu ay la weyn tahay. qaaruun alle ayaa ku arsaaqay hanti tiro badan oo aan xisaab lahayn. waxa uu helay maal adduun intii uu qof nooli heli lahaa. waxaa la wariyaa inuu noqday midka ugu hantida badan inta koonka ku nooleed xilligiisii. furayaasha qasnadihiisa hantida uu ku kaydsan jiray waxaa siday ilaa iyo 70 nin oo xooggan. ilaa imikan waxaa loo tiriyaa inuu ka mid yahay dadkii dunida ugu hantida badnaa abid. si kastaba, qaaruun markii uu helay xoolaha tirada badan, alle uguma mahad celintaasi beddelkeedase waa uu ku kibray oo uu ku qooqay. waxa uu ka tegey cibaadadii iyo alla kacabsigii uu ku caanbaxay. waxa uu noqday nin ku mashquulsan hanti uruursi uun, inkastoo inta kale ay gaajo ku seexato. nin ku howlan hadba dharka midka ugu qaalisan inuu ku xaragoodo, inkastoo inta kale ay qaawan tahay. waxaa intaa uu ku darsaday kibir, isla weyne iyo arxan la'aan, isagoo ku faanay in hantida uu haysto uu ku helay aqoontiisa oo aysan cidna siinin. qaaruun waxa uu la qaraabo ahaa nebi muuse calayhi salaam, sidoo kalena waxa uu ka mid ahaa qoomkii reer banuu israa'iil. alle markii uu soo dejiyey xukunka sakada, nebi muuse ayaa qaaruun faray inuu maalkiisa sakada ka bixiyo. qaaruun waxa uu xisaabiyey inta ay la eg tahay sakada ku waajibtay maalkiisa tirada badan. waxa uu ogaaday in xoolo badan laga rabo, markaasi ayuu yidhi si jees-jees leh, muusew amaradaadii hore ayaan qaadanay indhala'aan, ee markaan ma waxaad u soo dhigatay hantideenna? qaaruun waxa uu ku dhaqaaqay ceebeen iyo suurad xumeen inuu ku sameeyo nebi muuse, isagoo islaan daris la ahayd lacag ku soo siiyey inay ku been abuurato nebi muuse. waxa uu ku faray inay meel fagaara ah ka tiraahdo nebi muuse ayaa igu xadgudbay oo i kufsaday, si xukunka kufsiga oo markaasi soo degay loogu qaado muuse. markii fagaaraha laysugu yimid, qaaruun waxa uu bilaabay inuu nebi muuse ku eedeeyo kufsi. markii uu haweeneedii u yeeray, waxaa dhacay wax lala yaabay oo ahaa inay runta ku dhiiratay oo ay sheegtay in hanti fara badan ay ku qaadatay beenta uu wado qaaruun. sujuud ayuu la dhacay nebi muuse, isagoo markaasina alle uga dacwooday qaaruun. qaaruun iyo hantidiisii faraha badneed, hal jeer ayaa alle dhulku uu la jaray, iyadoo midina aysan ka harin. carrada alle ayaa ku dhacday oo dhulka la goysay qaaruun iyo wax kasta oo xoolo ah oo uu lahaa.